dalka Jarmalka waxa uu ku yaalaa bartamaha qaaradda Yurub waxaana ku nool Soomaali badan kuwa oo isugu jira dhalinyaro iyo waliba dad waaweyn. Haddaba nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka waxa uu kurgalay wariye ayaan la mudakar ka oo ku eegay warbixintani waxyaabo badan oo taabanaya xaaladda nololeed ee dadka Soomaaliyeed ee halka ku nool. Jarmalka waxa uu ku yaalaa bartamaha qaaradda Yurub waxaanu xal la wadaagaa wadannada Faransiiska, Denmark, Luxembourg, Belgium, Holland, Switzerland, Austria iyo Poland. Wadankan Jarmalka waxa ku nool qiyaastii ilaa 50,000 oo Soomaaliya oo soo galay horaantii 80-maadkii ilaa 90-maadkii. hase yeeshee Soomaalida intooda badani kuma ay nagaanin wadankani Jarmalka, waxay u sii gudbayeen wadannada kale ee qaaradda Yurub. wadankani Jarmalka waxa uu ku adkaa bixinta dhalashooyinka iyo sharciyada marka loo eego wadannada sida ay u bixiyaan wadannada kale oo soo dhaweeya qaxoontiga magangeliya doonka. Soomaalida degan waxa ay badankoodu soo galeen sanadkii 2015, 2016, 2017 waxaanu Jarmalku qaatay qaxoonti aad u tiro badan oo ay Soomaalida ka mid tahay. guud ahaan xagga nolosha Soomaalida ee Jarmalka degan ayaa waxa ay iskugu jiraan dhalinyaro shaqaysta, kuwa waxbarta, qoysas ku tiirsan dhaqaalaha dawladdu bixiso, iyo sidoo kale dhalinyaro nolosha ka dhacay kuwaas oo ku jira beerta oo isticmaala balwado kala duwan. taasina waxa ay keentay in dhalinyaradu ay iskuulada ka tagaan isla markaana ay xabsiye galaan, iyo sidoo kale in ay dukaanada wax ka xadaan isla markaana xabsi dheer ay ku galaan, mustaqbalkoodu halkaasi ku lumo. dhalinyaradaasi ayaa da'doodu lagu qiyaasaa 15 ilaa 25. Muna Cali oo kamid ah madaxda sare ee jaaliyadda haweenka ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa waxay ka warantay kuna dheeraatay sidii dhalinyaradani loogu wacyigelin lahaa falalka xunxun ee keeni kara in ay xabsiye galaan. waxbarta oo iska dhaaf qamrigan ay cabaysiin hooyada guriga ku soo gaday waa lagu soo tahriibiyay. haddana waxaad sameynaysaa in aad qamri beeraha la fariisatid oo xashiish caba faa'iideysid jaaniskaaga. waxa lagu ogolyahay inaad wax baratid, inaad xirfad baratid, jaamacadaad aadi kartaa. dad badan oo waxaan aqaanaa Soomaali oo jaamacada aadeen, qaar oo maxaan ku sheegaa Osbaldon barteen. marka walaalayaal waxaan leeyahay dhul inaad soo tirtirtiin wax qurux badan maaha. ha aadin maxaan ku sheegaa security lacag 12 saacadood waardiyaana tahay. security muxuu yahay? waa waardiyaana tihiin. waa maxay wax baro maxaa ku kalfiina waardiyaana aad meel fadhiisidoo wax ilaalisid. waxaas maxaan ku sheegaa dadkeena dhalinyarada ma sameyn jirin. iskoolle ka soo bixeen, dugsi sare soo dhameeyeen, jaamacaday aadeen. anaga Soomaali waa isnaqaanaa xataa cunto karin markuu cunuga baranayo waxaan dhigi jiray cunto karin buu baranayaa. idinkana hadda waxa waaye dhulkii baa tirtiraysi oo waxaan loo joogin inaad sameynaysiin. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Naasir Cabdillaahi oo kamid ah dhalinyarada xirfadaha ka barata dalkan Jarmalka, iyo Cali Maxamed Saciid Cali Kalluun, Maxamed Cabdirasaaq, Rooda Axmed Geesey, Saciid Axmed Faarax oo dhammaantood ku dheeraaday sidii dhalinyaradani loogu wacyigelin lahaa falalka xunxun ee keeni kara khataraha halista ah ay wajahayaan dhalinyarada. 2014 soo galay rafaad fara badan iyo dhibaato aad iyo aad u fara badan baan kala kulmay. ii sheegay dilka ugu dada soo maray. waxaan soo maray Liibiya, dilka Kuuriya soo maray, Yaman baa soo maray, Suudaan iyo ii sheegay Yaman. waxaan u kala socon doonto waxay noo waday 4 habeen iyo 4 maalmood bay doona waday. beeraha galay ama ii sheegay boosaskii looga baahnaa dawladda aan imaanin ee dadkii ay ka soo jeedeen boosaskii u soo iibiyay. dhibaatooyin aad u fara badan bay dadkii xagga ka dambeeyay iyo ayaguba ay la kulmayaan. waayo qofkii Yurub jooga, qofku waxa laga sugayaa Yurub waxa la moodahay lacag fara badan inay taalo. qofkii inuu macnaha markuu soo galo uu lacag iyo dhaqaale gacanta la galayo inuu bangiyo loo jibinayo maaha. sidaa maaha. wadankan dib iyo dheef uu leeyahay. dhibkiisa iyo dheeftiisaba macnaha wax barnaamij ama hal barnaamij lagu soo koobi karo maaha. laakiin qodobada ugu muhiimsan haddii aan ka taabano nolosha Jarmalka taala dhinaca xun iyo dhinaca wanaagsanba aan ku horeyno dhinaca xun. marka ganaaxaas markuu qofkii ku bato waxay noqonaysaa qofkii dhalinyarada inta badan ma shaqeeyaan, dawladda wax siiso qofkii. marka waxay noqonaysaa wixii ay dawladdu siinayso in dhexe loo sii istaago. marka qofkii dhalinyartaha macnaha waa lacagtiisii iyo wixiisii macnaha kuma filnaanayaan. waxay noqonaysaa qofkii inuu fikro, stress ku dhaco, inuu qofkii ma garanaysaa uu balwado bilaabo, xashiish ama khamri ama wax lamida. inta badan dhalinyarteena oo Jarmalka joogta Soomaaliyeed
dhibka haysta oo ugu badan waa balwada iyo stresska marka qofkii inuu isla hadal iyo waali gaaro stress gaaro marmarka qaar qofkii uu dagaalamo ama uu dadka ma garanaysaa isku dayo inuu dadka au waxyeeleeyo qofkii markuu dadka waxyeeleeyana wadankan dawlad buu leeyahay dalbu macnaha wadankan dad dawlad leh sida Soomaaliya kala ma qofka waa la qabanay isbitaal balgeey waa iska duraa ka dhalinyarada inta badan dhibka haysta waxa weeyaan macnaha kama fiirsadaan markay wax sameynayaan iyo balwadii iyo ma garanaysaa wadankan dhibaato badan baa yaala marka systemkan ay Jarmalka iyo systemka wadanka isku mid ma systemkan inay la qabsadaan aad bay ugu adag tahay dhalinyarada badan marka dhalinyarada walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay garanaysaa ay wax bartaan oo ay dadaalaan oo fortraagada ay iska hubiyaan waayo qofkii markuu biilkii loo soo diriyay uu waayo de noloshii waxay noqonaysaa inuu maartay si u dhacsan lahaa uu gaaro meeshana waa meel sharci ka jiro hadaa khalad gashid maalinta koowaad lagu xirmay waa lagu sii deeniyaa maalinta labaad waa lagu sii deeniyaa maalinta saddexaadna xabsi waa lagu geenayaa dibana ama waa lagu durayaa marka si aadan maartay u galin arrintaas aadan u galin waa inaad iska hubisaa kuwa dariiqii kugu xagilaha halkaa dhibaatooyinka ugu horeeya ee horta haweenka la kulmaan waxaa ka mid ah inta markay yimaadaan ayagoon afka aqoonin ayagoon sharuudaha u yaala aan aqoonin taaniyan hooyadu markay inta timaado waxa looga baahan yahay waxyaabo badan in ay fuliso dhibkii ay soo martay tahriibkii ay soo martay way iska iloowaan taaniyan waxaa dhacda in ay iska ilaawaan dhibaatooyinkaas ka fikirin noloshooda nolosha ciyaalkooda nolosha reerkooda sababtoo ah adigoon afka aqoonin sharuudaha iyo sharciga u yaalo waxaan dhihi lahaa gabdhaha ka tagay dhaqankoodii iska iloobay inay u soo tahriibeen wadan islaameed qaatay dhaqanka aysan lahayn waxaan dhihi lahaa iska iloowa dharkiinana ha xoorina diintiinana ha ka tegina maadaama aad gabdhaha caalamka ugu quruxda badan ugu sharafta badan la tihiin taasaan idinka waanin lahaa hooyooyinka soo tahriibana waxaan dhihi lahaa ilaawin dhibka aad soo martay saxaraha aad soo martay badda aad soo martay ha iloowin mar walbaba ku taagnaaw dhaqankaagana ha ka dhaqaaqinaan dhihi lahay aniga intaas waa iga waano gabdhaha Soomaaliyeed aan waaninayo waa yalla mudakar RTN TV Jarmalka